السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان أصحاب تلقى نيجا داونيسا ميل والبوا شوكتان يسول بوا مقال كيجو ومركا يدين سو قاريبا مقال كم حندوني مركا لأن كجا هذا حالده يقدم بيجي دل كان مريكنكا أو إن معلمي لصور دافع أي نكهل ليني حاربا إن الإيدين حقيقيو إن عنصرية دي كتن كهيد سومالي ده أي مركا نجيسسي يلا نيسو إسلام مركا نقالة بدن لجوب بحنيو أو مركا سيلا نحنيو waxaan marka doonayaa inaan muuqaalkan aan si gooni ugu fiiriyo dhacdo dhawaan ka dhacday gobolka Wisconsin ee dalkani Mareykanka oo wiil iyo gabar Soomaali ah oo damcay inay maqaayad cunno ka iibsadaan lagula kacay fal cunsuriyad weyn leh kadibna qofkii arintaasi sameeyay oo ahayd naag cadaan ah ayaa markaas waxa lagu abaal marinayaa kumanaan kun oo dollarka Mareykanka ah si loo muujiyo nacaybka loo qabo dadka Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka degan madaxweynaha Mareykankuna uu markaas gadaal ka riixayo waa dhacdo ugu ku dalkan Mareykanka waana dhacdo hadda saacadii hadda la soo dhaafay si weyn u qabsatay warbaahimaha waaweyn ee dalka Mareykanka iyo waliba social media marka baldacadaasi maxay tahay xagay ka dhacday maxaa dhacay xagay wax marayaan maxaynu ka fahmi karnaa iyo arrimaha ayo dhan ayuu muuqaalkan bal ku dul istaagi doonaa waxaan idin la wadaagi doonaa xogo kala duwan oo aan soo aruuriyay oo ku saabsan dhacdadaas marka bal soo dhawaada meel walba joogtaan isoo dhacdadan la yaab kale oo ay ka muuqato cunsuriyada ayaa waxay ka dhacday tuulo yar oo ku taala gobolka Wisconsin ee dalkani Mareykanka oo magaceeda la yiraahdo Ashwaubenon waana tuulo aan aad uga fogeyn magaalada ay Soomaalidu ka degan tahay gobolkaasi Wisconsin ee Green Bay la yiraahdo duleedkeeda ayay markaasi ku taala kulli dadka aniga eelamidka ah ee dalkan aad ugu dhax socon jiray ama ku dhax socda way garanayaan tuulada aan ka hadlayo tuuladaas marka waxa ka dhacday dhacdo la yaab leh waan isleeyahay waa mid ugub ku ah dalkan Mareykanka markaynu ka hadlayno qoomiyada yar ee Soomaalida ah ee dalkan qaxootiga ku ah marka maqaayad ku taala tuuladaas oo ah maqaayadaha yar yarka ah ee waxyaalaha macmacaanka sameeya lagana garanayo dalkan Mareykanka waa maqaayad Cinnabon la yiraahdo keega noocaan ah ay sameeysaa iyo waxyaalaha la midka ah hatta meelaha tragstoomyada ah aad ayaa looga helaa keegooda iyo waxyaalaha ay sameeyeen inkastoo anugu aanaba jeclaynba oo keegoodu uu yahay mid macaanka ka tira badan oo aanaba jeclayn haddana marka waa maqaayadaas ay wiil iyo gabar Soomaali ah damceen inay wax ka iibsadaan dabcan keeg bay iibiyaan wax kale ma iibiyaan marka keegii markii ay damcday naag cadaan ah oo meesha joogtay inay ka iibiso wiilkii gabadhii Soomaaliga ahaa ay waxay fahantay dadkaanu inay Soomaali yihiin wixii inta ka dambeeyana waxay bilowday aflagaado iyo cay iyo nacayb aan horay loo arag waa qof alaab iibsanaya oo lacag wata oo waxaan iga iibso leh dalkan cunsuriyad way ka jirta qof walba wuxuu aaminsan yahay wuu qabi jira laakiin in sidaan ay inta banaanka ugu soo baxdo qof customer ah waxaan lagu sameeyaa waa arrin ugub ah waxaan isleeyahay waa mirihii Donald Trump maalmihii la soo dhaafay uu abuurayay qaybtoodii ugu horeysay oo markaasi soo bislaatay way marka naagtan cadaanka ah wiilka ay gabadha way caayaysaa way aflagaadeynaysaa isla markaana waxay leedahay hadiinan meesha ka tagin alaabtan intay saan u qabatay alaab yar oo meesha u saarnay ayaan wajigeedin kaga dhufanayaa bay leedahay marna waxay leedahay biyo ayaan indhaha idin kaga daadinaya hadiinan meesha ka tagin wasakhaha qurunka ah bay leedahay bal wax yar ila daawada naagtan cadaanka ah oo muuqaalo tira badan laga duubay laakiin qaar kamid ah aan gacanta ku soo dhigay I am racist. So idiot for And real. you are an idiot. No, I I'm am not. racist, and I'll say that to the whole entire world. What's wrong with you? What the fuck is wrong with you? You fuck out of my Ugly? face. Talking about ugliness? Did I stutter? Your body makes you a better person. Are you recording? I'm gonna record you. Yes. Do you want me to throw water on you or something? I would get the face with your You recording. better. Fuck out of here. No, I I'm am not. racist, and I'll say that. arinta la yaab kale ayaa waxay tahay inay naagtaanu sheegaysa cadaanka ah dunida oo dhan u sheegay inaan cunsuri ahay bay leedahay waxay ku faraxsan tahay cunsuriyada gaarsiiya dunida oo dhan bay leedahay cunsuri baan maxay iga qaadi kartaa ma arkaysaa waxaad markaa arkaysaa in lagu faanayo cunsuriyada dalkii lahaa dunidu u horumarsan yahay dimuqraadiyad baa ka jirta xadaaradii aqoon baa ka jirta dalkii waxa laga sheegayay weeye waxa dadkiisu ay leeyihiin dunida hal la gaarsiiyo cunsuri baan dhaha ma arkaysaa wixii inta ka dambeeyay naagtii cadaanka ahayd oo cunsuriga ahayd ayaa wax laga ceeriyay shaqadii sida ay qorayaan warbaahimaha waaweyn ee dalkan Mareykanka inkastoo wali aanan arag statement ka soo baxday company-gan ama maqaayadan laakiin warbaahinta oo dhan waxay sheegaysaa
in naagta caddaanka shaqadii laga cayriyey laakiin waxaa dhacday wixii intaa ka dambeeyey arrin la yaab leh oo muujinaysa heerka nacaybka soomaalida dalkan degan loo abuuray ku baro quraanka hab online adigoo jooga gurigaada amaba goobtaada shaqada haddaba markis alhuda center waa markis ku caan baxay barista quraanka kariimka weliba hab online haddaba markiska waxa kugu diyaara maadooyinkay ka mid yihiin barashada caqiidada barashada xifdiga quraanka kariimka iyo sidoo kale barashada higaada iyadoo lagaga dhisi doono barashada higaada muddo 8 bilood ah haddaba markisku waxa uu qaadanayaa arday cusub hadda iska diiwaangeli oo ka faa'iideysa fursadan qaaliga wixii faahfaahin nagala soo xiriir nambarada hoos ku xusan in naagti waxa samaysay cunsuriyada ku dhaqantay loo furay campaign lacag loogu aruuriyo si loogu abaalmariyo cunsuriyadii ay kula kacday Soomaalida oo dadkii cunsuriga ahaa ee mashruucan cunsuriyada taageerayay ayaa waxay u rays gareynayaan ama ay ugu deeqayaan kumanaan kun oo dollarka Mareykanka ah waxaana ciwaan looga dhigay in markaas la garab istaago naagtan caddaanka ah oo magaceeda Crystal la yiraahdo waxaana la leeyahay waa hooyo caddaan ah oo waliba hard working ah laakiin laba qof oo Soomaali ah ay damceen baa la yiri inay handadaan oo shaqadeeda iyo shiftigii ay ku jirtay ay ka dhigaan mid markaas aad iyo aad u xun oo heel ah markaysa intaas oo kaliya ayaa ciwaan looga dhigay bilowga campaign-kan waxa la yiri naagtan waa in loo aruuriyo caddaanka ah 20,000 oo dollarka Mareykanka ah laakiin 2 saac markay ku jirtay ayaa 20,000 kor loo dhaafay ilaa 30,000 oo dollarka Mareykanka ah ayaa loo aruuriyay 2 saac ugu horeysay oo kaliya kadibna kor bay u qaadeen oo 100,000 oo dollarka Mareykanka ah in la gaarsiiyo lacagta lagu abaalmarinayo naagtan cunsuriga ah ayay ka dhigeen qoladii u samaysay campaign-kan xilligan oo aan muuqaalka duubayo waxa naagta caddaanka loo aruuriyay 49,829 dollar markaysan waxaana already 100,000 half kamid ah ayaa markaas la gaarsiiyay waxaan hubaa barribilkii la gaaro xillidan oo kale ama marka Mareykanka laga soo kaco ilaa galbihii la gaaro inay lacagtaan kor u dhaafi doonto 100,000 oo dollarka Mareykanka ah dhanka kale gabadhii Soomaaliga ahayd iyo wiilkii la cunsuriyay ayaa iyaguna waxa GoFundMe looga furay campaign kale oo la doonayo in midkaasi lagu challenge gareeyo maadaama dhacdadan ay noqotay mid si weyn looga hadalhayo gudaha dalka Mareykanka iyo waliba warbaahinta iyo social media dalkani kadibna Soomaalidii waxay yiraahdeen anaguna waxaan rabnaa in gabadha iyo wiilka ayaguna loo aruuriyo 40,000 oo dollarka Mareykanka ah laakiin muuqaalkan oo aan duubayo isla xilligaas ayaa waxaan arkaynaa in wiilka ay gabadha Soomaaliyeed ee lagu kacay cunsuriyada lacagta ilaa ay hadda ay Soomaalidu u aruuriyeen ay tahay $55 oo kaliya hatta $100 ma dhaba markaysan halka cunsuriyadiina loo aruurinayo 50,000 oo dollarka Mareykanka marka waxaan ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka ku dhaqan iyo cidii kale oo arinta ka qayb qaadan karta qaybta hoose ee commentiga ayaan ku pin gareynayaa linkiga GoFundMe-gan gabadhan iyo wiilkan lacagta loogu aruurinayo bal wixii aad ku dari kartaan ku dara waliba reer Mareykan meesha aynu iska qaadno 50,000 waxaan islaahay waa lacag yar oo kooban markii laga hadlayo dadka Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka iyo caalamka markaas ku fiirsan marka taasi waa intaas oo aan ka qayb qaadano maadaama arintu ay noqotay mid si weyn loo hadalhayo meesha laga qaado ayaan oran lahaa anigu naftirkayga qayb baan ku dari doonaa hadii la yiraahdo marka xigta arintaan maxaynu ka baran karnaa iyo maxaynu ka fahmi karnaa ayaan doonayaa bal xogaa yar oo analysis inaan ku sameeyo bal si dadka aan aragtidooda iyo fikirkooda aan u furfuro oo aan u tuso qatarta ka iman karta dhacdan yaab kale arintan dhowr waxyaalood oo kala duwan ay muujinaysaa sidoo kalena waxay leedahay qataro ay suurtagal tahay in mustaqbalka ay Soomaalidu ay la kulanto waxa ugu horeeya oo arintan ay muujinayso ayaa waxay tahay in nacaybkii uu faafinayay madaxweynaha Mareykanka ee Donald J. Trump ay markaas noqotay mid shaqaysa Soomaalidana meel walba markaas lagu beegsanayo qodobka labaad waxay arintan ay muujinaysaa in markaan Soomaalidii laga dhaxgartay dadkii kale ee madowga ahaa maadaama warbaahintii oo dhan lagu jeediyay reer Mareykan markaan waxay garteen sida dadkan yarka ay laga qaylinayo sida ay u eg yihiin ay markaan ka barteen dadka kale ee madowga ah iyo qoomiyadaha kale ee xataa noo eg sida Etoobiyaanka iyo Oromada qatarta arinta noocan oo kale ah oo ay yeelan karto ama la oran karayo way ka iman kartaa mustaqbalka ayaa waxa kamid ah in dadka sida loo gartay lagana hor keenay dadka cunsuriga ah in mustaqbalka dambe marka Soomaalida la beegsado oo beegsigu hadda waa hadal ay xabad iyo dil marka ay gaarto oo dad qoryo la ordaya ay Soomaalida beegstaan waa suurtagal inay ka dhalato
waxaanu Donald Trump iyo kooxdiisu ay ka wadaan gudaha dalka Mareykanka. Haddaba dadka ugu badan oo beegsiga noocaan ah la kulmi karaya ayaa raabinaan laba u kala qaado si markaasi ummaddu ay u fahanto message-kayga. Marka ugu horeysa dadka ganacsiyada leh ee Soomaalida ah ee moolasha leh dukaamada leh meelaha loogu soo hagaagi kara leh waxay keeni kartaa qatar in la beegsado oo markaasi kooxo cunsuri ah oo hub la ordaya ay markaasi ugu galaan ganacsiyadooda. Marka labaadna waxaa qatar ayaguna ku sugan dhalinyarada iyo dadka Soomaaliyeed ee ka shaqeeya industry-ga tracking-ka ah oo tagaya meelaha ay kooxahan cunsuriyiinta ay ku badan yihiin sida hadda Midwest-ga oo kale oo ay aad ugu badan yihiin ayaa waxay ka mid noqon kartaa meelaha Soomaalida iyo dhalinyarada trackerska markaasi lagu beegsado. ayagana waxaan farayaa inaad isku badnaataan xataa haddii la yiraahdo Soomaali baa tiin xataa aad tirahdaan Soomaali ma nihin waayo qof wax kaaga imaanaya ma taqaanid. sidoo kale dadka dukaamada leh ee magaalooyinka waaweyn degan sida Columbus Ohio sida Minneapolis iyo meelaha la midka ahna oo ganacsiyada leh waa inay indhihii hore oo ay ku fiirinayeen dadka reer Mareykan indha aan ahayn ay markaasi ku fiiriyaan waayo xaaladdu waxay markaan u muuqataa mid dabka lagu sii shidayo in Soomaalida la beegsadana dhaqaalaha aad arkaysaan ayaa lagu bixinaya. intaas aad muuqaalkan ku soo koobay dib isaga soo laaban waxaan idinka tagaysaa inuu diro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.